سؤال حكته ويدينا وحوليه هاي haddii qof sooman uu ku hamiyo inuu gaaloobo balse uu isciliyo isagoon falkii ku dhaqaaqin soonkaas ma ka jabaya qaybta labaad su'aashu wuxuu leeyahay seesa uga toobad keenaya hamigaas xun wuxuu intaas sii raaciyay hadda ka hor ayaan waxaan wadaad ka maqlay isagoo leh qofkii bil kadib niyeystay inuu gaaloobayo markaas ayuu diinta ka baxay waxaan kala qaadaynaa mas'alada hamiga iyo casiimada hamigu mar wuxuu noqdaa sheekada qalbiga waswaaska khawaatirta qalbiga ku soo dhacdhacaysa ee uu ruuxu wali uusan go'aansanin laakiin waa waswaas naftiisu ku sheekaysanayso xadiithu nafsi baa la yidhaahdaa hamina waa lagu itlaaqaa hadduu noocaa yahay ruuxa islaamnimadiisana ma saameynayso soonkiisa iyo cibaadadiisana ma saameynayso loona qaban maayo ilaahay agtiisa tabaaraka wa tacaala sidaas xadiidka nabiga tilmaamaya salawaatu rabbi wa salaamu alayhi xadiith abi hurayra wuxuu leeyahay inna allaha azza wa jalla tajaawaza li ummati amma haddathat bihi anfusaha ma lam tatakallam bihi ilaahay ummadayda wuxuu u dhaafay wixii ay nafteeda ugu sheekayso ama nafteedu ku sheekayso naftu waxay ku sheekaysato qalbiga ku wareegaya ilaahay ummadda waa u dhaafay ma lam tatakallam bihi hadayna ku hadlin haddii aadan ku hadlin ama aadan samaynin laakiin ay tahay wax qalbiga kaaga soo dhacdhacaya go'aanna aadan ku qaadanin markaa lagu qaban maayo islaamnimadaadana saamayn mayso cibaadadaadana saamayn mayso isla meesha way miduu ku iimaanayo xadiidka hore Ahmad iyo Muslim baa wariyay xadiidka Abdullah ibn Abbas fi sahihayn wa xadiid dheer laakiin qaybtiisa dambe waxay ahayd waman hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah lahu 'indahu hasanatan kamilah fa in huwa hamma biha fa'amilaha كتبها الله له سيئة واحدة روح هدو حمان هميو أي قلبي سكسر دعده أو أصلا سمينين إلهي وحو أقريا أجر لما يسترن بو أقريا هل حسنو لما يسترن بالو أقريا هدو حمان تي هميو أو أصلا هل سيئة لو أقريا مركا هميك قلبك يدوني دا أنقو آنك أهين لكن حديث نفسك ليس قبا مايو وحكوا إيمانا يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحابة رضوان الله عليهم صحيح مسلم غير كي كوي مذا يدادين رسولك الله وقلبك أنك وحنكيه لنا وحي نقول عرصته إنا نكوه هذا الله مركز النبي صلى الله عليه وسلم أو مهشين أرنتاسي ما يتم كل الله تهابي ده النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان وإيمان عدبوي وإيمان عد محا إيمان عد وسواس كقلبي والشيطان كاغا سو تورتوريو لكن أفكاغا كسو ساري لاي أما عاد وكوغوليسن لاي إناد سميسو وسواس كاس واحد ديدي إناد سميسو وإيمان عدوه حديثكي كالواكية هالشيطان بعمدكينو إيمانا يا مركاسو كله يا دولك أبوري يا كو أبوري يا كان أبوري يا الله أبوري مركدن بكله هذا أرنك هشان وحات رادان آمنت بالله إلهي بأن رميه له ده ولينتهي أرنت أنا إسكتشوش مركب وسواس كالنوع عصو كلاء قال لي ما كانوا عبادة هذا أنا مبوريو حديث النفس بالليل هذا قيب طلبات وواحد اللي هذا العزم على الكفر وشرح الصدر به والعياذ بالله إن أتقو أنصتو قال لي inaad gaalowdo laabtaadana gaalnimada ku sharaxdo oo aad kula qumanaato oo raali ku noqoto midaasi waa gaalnimo markaas xilli dambe sugi meesay markaas aad gaaloobi laana gaalnimadu carabkana way ka dhacdaa xubnahana way ka dhacdaa oo ficilhaan waa u dhacdaa اعتقاد كان وكذا عضاي ويكون عضاي وقلبك ويكذا عضاي
haddii marka gaalnimadiiba kula qumanaato ama aad raalli ku noqoto ama aad go'aansato ar-ridaa bil-kufri kufrun waay gaalnimood raalli ku noqoto waa gaalnimo taad raalli ku noqotood ku qanacdo waa gaalnimo saas daraaddeed baa in badan oo culimada islaamka ka mid ah waxay tilmaamayaan go'aanka uu ruuxu ku gaadho inuu gaaloobo xataa xilli dambaba ha noqotee markaasuu gaaloobayaa bay leeyihin idaa cazama cala alkufri kafara xaalan bay leeyihin hadduu bil kadib baan gaaloobayaa yidhaah bishiiba intaan la gaadhin markaasuuba diinta ka baxaya waa saas waay in badanoo culimada ka mid ah tilmaamaysa alimaam badrudiin azarkashi alimaamu nawowi muxuu ahaayey saaxibuuljamal culimo fara badan yani atarabulusi oo xanafiya culimo badan oo tilmaamaysaa jira idaa cazama cala alkufri walow bacda 100 sana yakfur fi lxaal bay leeyihin hadduuba go'aansado xataa 100 sano kadib baan gaaloobaya hadduu go'aansado markaasuu diinta ka baxayaa bay leeyihin lianna waxa weeyaan alridaa bilkufri kufrun waay markaaba haddaad ku qanacday gaalnimada sugi mayso xilli dambe markaasaa diinta ka baxaysa haddaad diintii ka baxdayna soonkaagii waa buray salaadaaduna waa buraysaa macnaha marka taas hadday tahay oo casiima iyo sharxu sadri ay tahay markaa gaalnimo cad wey macnaha ayib waa tii aayaddii ku jirta aayadda alla laha tabaaraka wa tacaala walaakin man sharaxa bilkufri sadran facalayhi ghadabun min allah markii ikraah laga hadlay marka laabtaadaba haddaad gaalnimo ku sharaxdo ay kula qumanaato waad gaaloobi diintana waad ka bixi sidaasi waa sida ay culimada jamaahiirtoodu qabaan intaan arkay laakiin alimaam shawkani baa wuxuu leeyahay risaalo la yidhaahdo rafcu lbaas can xadiidi الnafsi wاlhami wاlwaswaas risaaladaasi waxay ku jirtaa majmuuca rasaa'ilkiisa kitaabkan uu ka qoray maxamed subxi xasan xallaaq ee rasaa'ishiisa uu ku ururiyay bay ku jirtaa sheekh shawkani calayh raxmatullah wuxuu leeyahay ruuxii gaalnimo niyeysta ama go'aansada ilaa uu sameeyo gaaloobi maayo xadiidu nafsigaas ku soo arooray xadiidkii ku soo arooray xadiidu nafsigan hadda sheegayna buuna daliishanaya cumuumkiisa u daliishanaya risaalada waad akhrin kartaa laakiin culimmada inta badan aan arkay saas horay qabaano inuu markaaba ruuxu gaaloobayo wallahu aclam